behavior dabeecad ama habdhaqan. waxaynu maanta isdul taagaynaa mawduuca dabeecadda inagoo hore uga soo hadalnay fikirka ama siday bulshooyinku fikir isugu saameeyaan. waa maxay dabeecad? sidee bay dabeecaddu ku samaysantaa? sideese loo raadeeyaa dabeecadda? dabeecaddu waa habdhaqan ama ficil islamarkaana waa natiijada ka dhalata go'aanada uu qaato nooluhu kuwaas oo ku yimi habdhaqanka noole. haddaba dabeecaduhu waa labo, dabeecad xun iyo mid wanaagsan, kuwaas oo labaduba raadeen ku leh noolaha. tusaale ahaan haddaan soo qaadano aadanaha oo qayb ka mida noolaha waxa uu soo bandhigaa laba dabeecadood, kuwa la mahadiyo iyo kuwa aan la mahadin, kuwaasoo dhammaan saameeyo qofka iyo bulshadaba. haddaynu yaro jaleecno dabeecadda wanaagsan ee qofka iyo sida ay u saamayso dhinaca caafimaadka, exercise-ka. haddii aad jimicsi samayso waxay kaa caawinaysaa inaad xukunto culayskaaga, hoos u dhigto khatarta aad ugu jirto inuu kugu dhaco wadna xanuun, inaad kor u qaaddo caafimaadka maskaxda iyo niyadda. waxay kaloo kaa caawinaysaa habfikirka togan, sida inaad yeelato xirfadaha xukunka, niyadjabka, walaaca, noocyo ka mida kansarka nooca labaad ee macaanka, kuwaas oo dhammaanba kuu horseedi kara deegaanka ama dadka kugu hareeraysan inaad ula dhaqanto si caafimaad qabta, halka taa cagsigeedana ay kuu horseedi karto inaad noqoto qof bulshada uu la nool yahay ay dhibsato iyo wixii la mid a. sidee bay dabeecaddu ku abuurantaa? dabeecadda bini'aadamku waa mid la sameeyo ama la abuuro, waxaana abuura saddexdan tiir ee soo socda: hiddo waalid, deegaan, waxa kaa dhex guuxaya ama aad ku fikirayso. sidee loo raadeeyaa dabeecadda? haddaba bini'aadamku waa noole dabeecaddiisa ay saamayn ku leeyihiin hiddaraaciisa iyo deegaankiisa, waxaase xoog badan deegaankiisa. haddaba su-aasha isweydiinta mudan waxa weeye, waa maxay sababta aanu bini'aadamku uga baxsan karin saamaynta dabeecadeed ee deegaanka? haddaynu nahay insaan waxaynu nahay noole ijtimaaci ah oo aan keligii noolaan karin, una baahan deegaankaasoo leh dhaqan, caado iyo waxyaalo kale oo badan. haddaba si aad qayb uga noqoto deegaanka waxaad ku qasban tahay inaad aqbasho habdhaqanka iyo caadada bulshada si aad oggolaanshiyo uga hesho xubnaha qaybta ka ah. maahmaah ayaa waxay ahayd, haddii aad tagto magaalo in laga la'yahay waa inaad isha iska riddaa.